habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah dagaalka sokeeye ee Yemen oo weli dad ku dhimanayaan waxaana jiro magaalo ay laba dhakhtar ka shaqeyso iyadoo kumanaan ay sugayaan haweenka shaqeeya wadanka Turkiga waa 34% maxayse tahay sababta qaar badan ay u doonayaan in arintaasi la bedelo sidee dooliga looga celiyaa dalagga beeraha Tanzania si looga fogaado cunto yari dawladda ayaa ballan qaaday 2 litir oo sun ah si loo ilaaliyo beeraha dagaalka Yemen ee u dhaxeeya dawladda Sacuudiga uu taageero iyo xuutiyiinta garabka ka helaya Iran waxa uu hadda ku dhow yahay 3 sano dhammaan heshiisyadii nabadda ee qaramada midoobay wadayna way fashilmeen dhaqaalaha dalka waa uu baaba'ay dadkuna waxa ay qarka u saaran yihiin macluul wariyaha BBC-da Liz Dusaid oo wariyay ugu horeeyay ee Bayhaan ee koonfurta dalkaasi taga halkaas oo ciidamada dawladda Yemen ay ka saareen xuutiyiinta wayartahay in loo dabaaldego guul laga gaaray dagaalka dhibka badan ee Yemen wax yar xitaa halkan waa guul 2 sano ayay ku qaadatay in ay halkan soo gaaraan haddana ciidamada Yemen iyo maleeshiyad ayaa maamulo gobolka Shabwa duqeymaha isbahaysiga Sacuudiga ayaa yareysay isu imaatinkii xuutiyiinta qof kasta wuxuu ka hadlayaa xal siyaasadeed balse waxay aaminsan yihiin inay suurtagal tahay labada dhinacna waxay aaminsan yihiin qabsashada dhul hor leh Bayhaan waa magaalada ugu weyn gobolka ciidamada ayaa qabsaday waa magaalo istiraatiiji ah isbuucyo ka hor xuutiyiinta ayaa haystay laakiin sanado dagaal ah ayay Bayhaan ku burburtay adeegyada caafimaadka way baaba'een hal cisbitaal baa ku haray halkan 2 dhakhtar ayaana kumanaan qof daaweynaya shaqaale badan ayaa ka tagay markii xuutiyiintu ay qabsadeen balse bukaanada way imaanayaan gurigii Xasan Nasrul Al-Hasbi madfac ayaa ku dhacay lama oga cidda soo riday wassalaamu wassalaam ala sayyidil mursaliin qoyskayga oo dhan way dhinteen ayuu yiri saddexdayda cunug way dhinteen anigii xaaskayga ayaa badbaadnay ayuu ii sheegayaa qoys dhan oo 13 qof ka koobnaa ayaa gurigiisa ku dhamaatay wasiirka warfaafinta Yemen wuxuu xaqiijinayaa intan aan aragnay waxna natlub min maleeshiyat al-Houthi wuxuu sheegay ma doonayno inaan baabi'ino xuutiyiinta waa Yemeniyiin balse waa inay hubka dhigaan waa aragti fiican laakiin dagaalka xun wuxuu baabi'iyay dalkan dadkana waa in ay dagaalka ka badbaadaan iyadoo ay soo dhowdahay maalinta caalamiga ee haweenka ayaa waxa caalamka ka socda dadaalo la xiriira doorka shaqada ee dumarka wadanka Turkiga 34% ayaa shaqeeya guud ahaan dumarka waxayna aad uga hooseysaa 35 dal ee xagga warshadaha ka hormaray ee la isku yiraahdo OECD dalalkaasi oo celcelis ahaan 2 jibaar ay yihiin tirada dumarka shaqeysa Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana ka waramaya warbixintan Turkidu waxay ku faanaan dhaqankooda cunto fiican in la isku sooro ah laakiin hal dhaqan ayay halkan dareemayaan in uu dalka dib u celinayo dumarka aan shaqayn ee guryaha loo dhaafay 34% ayaa shaqeeya dumarka Turkiga taasoo ah in ay ka dambeeyaan dunida horumartay jaamacad ayaan helay laakiin aabahay ima doonayn waan guursaday 21 jirna ilma ayaan ku dhalay waan ka shalaynayaa dadka dhaliila madaxweyne Erdogan ayaa qaba in uu xaaladda ka sii daray markan dumarka aan hooyooyinka ahayn wuxuu ugu yeeray kuwa aan waxgal ahayn dhalma yarayntan wuxuu ku tilmaamay khiyaano qaran isagoo ku booriyay qoyskiiba ugu yaraan 3 caruur ah taageerayaashiisu waxa ay qabaan inuu u xoreeyay dumarka dhinaca shaqada kadib markii uu joojiyay mamnuucistii saarnayd masarka dumarka ee goobaha laga shaqeeyo bartamaha Turkiga Aynur Gomuşsoy waxay samaystay makhaayad iyo foorno ay iyadu leedahay
waa haweenay wax khayral-caadiya samaynaysa taasi oo tusaale u ah wax soo saarka dumarka waxay maalgelin ka heshay bangiga Yurub ee dib u dhiska iyo horumarinta oo caawiya dumarka ganacsiga yaryar ku jira. Bayanların çalışmasını çok yadırgıyorlardı. markii aan bilaabay 20 sano ka hor waan ku dhibtooday dadku way ka xanaaqi jireen dumarka shaqaynaya waalidkay way ila yaabanaayeen laakiin hadda waxaan u noqday tusaale fariinta aan u hayo dumarka waa in ay geesi noqdaan haddaan niyad jabi lahaa halkaan ma soo gaareen. kuwa u ololeeya dumarka waxa ay sheegayaan in dhaqanka Turkiga ee dumarka uu sababay dhibaatooyin qoys ilaa 40% dumarka Turkiga ayaa la kulma xadgudubyo sanadkiina 3 ilaa 4 ayaa u dhinta. halkan waxay dadku ku baaqayaan in dumarka Turkigu ay shaqeeyaan oo fadhiga ay ka kacaan aamusnaantana ay ka baxaan. faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo moobilkaaga ka galaya. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. madaxweynaha Ruushka ayaa ballan qaaday inuu kala bar dhimayo Ruushka saboolka ah. Vladimir Putin ayaa doonaya in 6 sano ee soo socda uu 20 milyan ka hoos mariyo oo uu gaarsiiyo 10 milyan. tirada dawladda ayaa muujinaysa in 7 Ruush mid ka mid ah uu sabool yahay. wuxuu sidoo kale ka digay in Ruushka uu luminayo qaranimadiisa haddii aysan ka faa'iideysan fursadaha tiknoolajiyada iyadoo Ruush badanna ay u guurayaan dibadda si ay u helaan shaqooyin fiican. hal askari ayaa ku dhintay dad kale oo rayid ahna way ku dhaawacmeen kadib qarax gaari oo ay ciidamada baarayeen oo ciidamada dawladda meel u dhaxaysa Muqdisho iyo degmada Afgooye. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in askarteeda ay ka hortageen gaariga oo qarax waday kaasoo dad badan dili lahaa haddii uu hadafkiisa gaari lahaa. ma jiro dal Afrika ah oo gaari doona qorshaha qaramada midoobay ee lagu dhameynayo gaajada carruurta dhammaadka 10 sano ee soo socda. warbixin faahfaahsan ayaa muujinaysa in xoogaa horumar ah ay sameeyeen dhowr dal sida Algeria, Ghana iyo Mozambique. kumanaan reer Venezuela ah ayaa geeri qarka u saaran iyaga oo qaba xanuun la daaweyn karo balse daawo la'aan baan ayaa ka jirta waddanka waxa aana lagu qiimeeyay daawo la'aantaasi 80%. bukaanada qaba cudurrada sida kansarka iyo cudurrada kaliyaha ayaan heli karin daawooyinka ay u baahan yihiin haddii la helana aad ay qaali u yihiin. Caaisha Afrax ayaa faahfaahinaysa. Judith halka ay ku dambeyn doonto ma oga in ka badan 10 sano waxa ay ku socotay kilil loo geliyay laakiin hadda daawo la'aanta jirta aawadeed kaniiniyadii ay u qaadan jirtay kilideeda ma aysan helin 4 bilood. waxaan ka baqaa inaan dhinto sababtoo ah ma heli kari daawooyinka aan u baahanahay. markaan isbitaalka aado waxaan arkaa dad badan oo kiliyihii loo geliyay ay shaqo joojiyeen. dhakhtarkeedu wuxuu leeyahay waxa u yimaada 700 oo bukaan oo ay iyaguna kiliyihii loo geliyay aysan shaqaynaynin. baahida loo qabo daawooyinka ayaa ku sii kordhaysa Venezuela. badanaa daawooyinka lama heli karo haddii la helana aad ayay qaali u yihiin. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa sheegay inay cunaqabataynta shisheeye ee sanadkii tagay ay ka hor istaagtay inuu daawooyin u soo dhoofiyo waddanka kolkii ay wax soo saarka waddanka la joojiyay sababo la xiriiro kordhinta kontaroolka dartiis. balse dadka dhaliilaya ayaa leh inay tani tusaale u tahay guuldarrada kacdoonka hanti wadaagga. dhibaatooyinka waxa ay ugu sii daran yihiin meelaha ka baxsan magaalooyinka. halkani waa Abuurey waxay u dhowdahay keynta Amazon waana gobolka ugu saboolsan waddanka. Josmar waa 7 bil jir waana uu macluulsan yahay. nabraha madaxiisa iyo jirkiisa ku yaallo waxaa sababay cudur la xiriira macluusha. hooyadiina ma awoodo dawooyinkiisa markii ay ka baxaan isbitaalka. Oriana iyaduna waxaa la soo darsay mustaqbal hubaan la'aan ah. waxa ay u baahan tahay qalliin sanbabada ah balse reerkeeda ayaan awoodin iibsashada daawooyinka jeermiska dila. waa daawooyin si fudud ay dadka dunida u helaan balse reer Venezuela ayaa aad ugu baahi qaba. Oriana nolosheedu khatar ayay ku jirtaa.
haddii aysan helin dawooyinka waa ay dhimanaysaa iyada iyo dad badan oo reer venezuela ah ayaa noloshoodu halka ay ku dambayn doonto la ogeyn. markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Manchester City ayaa isu diyaarinaysa inay is arkaan Arsenal markii labaad 5 maalmood gudaheed kadib markii 3-0 axadii ay kaga adkaatay. Guardiola iyo naadigiisa ayaa tagaya garoonka Emirates iyadoo jawigana uu aad u qabow yahay. City hal jeer oo kaliya ayay guuleysatay 32 ciyaar ee banaanka kula ciyaartay Arsenal. mid ka mid ah ciyaartooydii ka badbaaday shilkii diyaaradeed ee ay ku geeriyoodeen naadiga Chobaniski 2016 ayaa heshiis 2 sano ah la galay naadi Brazilian ah. Weeraryahankan oo la yiraahdo Alan Ruschel ayaa soo laabtay 9 bilood kadib shilka. taageerayaasha ayaa aad u murugooday 70 ruux oo shilka ku geeriyootay kuwaasi oo isugu jireen 19 ciyaaryahan iyo shaqaale la socday naadiga oo safar ku tagayay xilligaasi Colombia. waxaa aad u korortay tirada jiirka Tanzania taas oo keentay in ay beero badan xaalufiyaan. waxaana laga baqayaa cunno yaraan meelaha qaar xaaladda faraha ayayba ka baxday sida degmada Handeni oo ku taal waqooyi bari dalkaasi oo tuulooyin badan dhibaato ay ka jirto. beeralayda ayaa isku dayaya inay ka hortagaan aafadan. Cabdiraxmaan Bidhaan ayaana warbixintan ka waramaya. bilow fiican umay ahayn sanadkan beeralayda waqooyiga Tanzania. rajo weyn oo laga qabay dalag badan inuu u soo go'o ayaa niyad jab isu beddeshay kadib markii jiirdiirtay midhihii soo baxayay. in ka badan 66 ka mid ah 91 tuulo ee ku yaala degmadani ayaa ay saamaysay xaaladdu waxaana laga baqayaaba cunno yaraan. duulaanka jiirka ayaa bilaabmay dhammaadkii sanadkii hore waxaana loo malaynayaa in jiirku ka soo ruqaansaday kaymaha aan la nadiifinay halkaasi ku dhow. dadaalka ay beeralaydu ku rabaan inay ka hortagaan aafada jiirka ayaa waxaa xagaldaaciyey sunta xayawaanka oo qaaliya. wax kasta ayaan samaynay oo aan ku xakamayn karno jiirkan balse waan kari weynay. dhowr hab oo aan adeegsaday way guuldaraysteen. shakhsiyan waxaan beertayda ku dilay in ka badan 3,000 oo doolli oo aan baaldiye u adeegsaday. sunta lagu dilana waa qaali ma awoodi. waa xaalad adag waxaanay beeralaydu isku dayeen xeelado badan oo ay rabeen inay kula tacaalaan jiirka dilaacay. wakhtigan oo kale beeralaydu waxay xagaafaan beerahooda iyagoo u diyaar garoobaya xilli roobaadka. laakiin qaar badan kuma dhiiranayaan iminka iyagoo ka baqaya in mar labaad ay khasaaraan. baqdin ayaan ku noolahay waayo daqiiqdaydii iyo dhammaan moxogtaydii oo dhan way xumaadeen mana iibin karo. beeralaydu kuma qanacsanaa dadaalka wasaaradda beeraha oo aan sidii la rabay wax u qaban laakiin isduwaha beeraha ee degmadan ayaa sheegay inay iminka kaalmo geysan doonaan. waxaan dalbanay ku dhowaad 10 litir oo sun ah marka waxaan wasaaradda ka sugaynaa inayna siiso kadib waxaan ku wareejinaynaa beeralayda uu saamaynta xun ku yeeshay. laakiin iyadoo dhibaatadani ay ku sii fidayso qaybo kale oo dalkan ka mid ah ayaa beeralaydu rajaynayaan in tallaabooyinka cusub ee la qaadaya ay noqon doonaan qaar wax ku ool ah. ugu dambayntiina 2 dhuun oo kuwa uu qaaca ka baxo warshad koronto oo Kanada ku taala ayaa la dumiyey. dhuumaha oo muuqoodu caan ahaa ayaa la dumiyey qarax la hagayay gobolka Ontario waxaana la dhisay 1970-yadii waxayna mar ahayd midda ugu weyn waqooyiga Amerika waxayna shaqada joojisay 2013 waxaana lagu bedelay warshad qoraxda ka dhalisa korontada. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa waadna ku mahadsantihiin daawashadiinna. inta aan kulmi doonno habeen dambe aniga iyo asxaabta waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo.